من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. run ahaantii wax jadiida oo cusub laynii sheegi maayo. wixii aad hore u maqasheen unbaa lagu celcelin, waayo shareecadeenna dhanbaa caynkaasa. shareecadda islaamku waa shareecad qadiima weeyaan, walaakin saalixun likulli zamaanin walikulli makaan. zaman kastoo la joogo way ku habboon tahay diinteenna islaamka in la barto, in la maqlo, in la dhagaysto, in lagu camal falo. meel kastoo la joogana diinta islaamku iyada unbaa ku habboon in lagu dhaqmo oo la barto oo laysku dhaqo. saad wada ogsoontihiin aadaanku waa soo jireen ilaa cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam, wax isbedela laguma samayn. salaaduna waa lamid oo isbedel laguma samayn. salaadu waa salaadii asxaabtu ay tukanayeen, tii unbaan inakuna aan tukannaa. soonkuna waa soonkii uun, qur-aanku waa isla qur-aankii uun, axaadiistu waa axaadiistii uun, shareecaddu waa shareecaddii uun, diintu waa diintii uun. isma bedelaysa iyadu, laakiin dadka diinta haysta ayaa isbedelaya. $10 ayaa laga yaabaa nin miskiina inuu gacanta ku hayo, isla markaana $10 nin maaragtaane madaxweyneha inuu gacanta ku hayo. labada lacagood ee labada nin ay kala hayaan waa isku qiimo weeyaan, laakiin labada gacmood ee kala haysa ayaa kala duwan. diintuna waa sidaasuun, zaman kastaba diintu iyadii weeyaan, isbedeli mayso. qur-aanku waa qur-aankii, axaadiistu waa axaadiistii nebigeena calayhi salaatu wasalaam, laakiin dadka diinta haysanaya ayaa isbedelaya. cabdulaahi ibnu cumar allaha raalli ka noqda, isagii aabbihiibe cabdulaahi ibnu mascuud ayaa taabiciintii oo ardaydiisii u badnayd ayuu ku yidhi asxaabtii nebi maxamed, ininkaa ka salaad badan oo ka soom badan oo xagga uu dadaalka ilaahay taacaddiisana uga dadaal badan buu ku yidhi, laakiinse way naga khayr badnaayeen buu yidhi. markaasaa lagu yidhi abaa cabdiraxmaan ow see ku dhacday inaad tiraadid asxaabtii nebi maxamed ininkaa ka salaad badan oo ka soom badan oo ka dadaal badan xagga maaragtaane qaabka cibaadada aad ugu dadaalaysaan, laakiinse way naga khayr badnaayeen baad nagu tidhee sidee ku dhacaysaa? markaasuu yidhi hum kaanuu ashada fi ddunyaa wa arqaba fi laakhira buu yidhi. labada sifo ay nagu dheeraayeen waxa weeyaan, ayaku dad waxay haayeen adduunka dhexdeeda ku saahiday, aakhiradana jeceloo qalbigooda aakhirada ayaa ku weynayd buu yidhi. marka dadka diinta haysta ayaa kala duwan, ayaa kala qalbiya oo kala caqiide ah oo kala kalsooniya. saa darteed wax jadiida oo cusub laynii sheegi maayo shareecadda islaamku, bal qur-aanka ilaahay ku sheego. ilaahay baa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku leeyahay, adiga hortaa erga maaragtaanee diintan umaanu diran ilaa haddaan erga adduunka dusheeda risaalad u soo dhiibannoon soo dirannay, dadka waxay ugu yeedhayeen laa ilaaha ila allah, dadew dhahada, oo ilaahay garashadiisay ugu yeedhayeen iyo ilaahay cibaadadiisana way ugu yeedhayeen baa lagu yidhi. isbedeli mayso. min ladun aadam calayhi salaam, waxaana rususha ugu horreeyay waa nebi nuux calayhi salaam, ilaa nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadho
nebiyadu dadka waxay ugu yeedhayeen waa mid keliya middaasi waa maxay waa dadow ilaahayni abuuray garta deedna kolkaad ilaahay garataana cibaadadiisa ay nii dhib yaraanaysaa wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ay ilaa liyacrifuuni ibnu cabbaas mufasirkii qur-aanka waa kii lahaa qur-aanka markuu aayadda inoo macnaynayo ilaahay baa yidhi jin iyo insi umaan samaysan ilaa waxaan u samaystay inay aniga ay caabudaan baa ilaahay yidhi cibaadadu marka waa macrifo macrifada ayaa horaysa markaad ilaahay garatid ayaad cibaadada ilaahayna kuu dhib yaraan lidaalika cibaadada iyo macrifadaa horaysa nebi kastoo adduunkan yimidayna qoomkiisa wuxuu ugu yeedhayey dadka ilaahay buu barayay maxaa yeele dadku hadday ilaahay ay bartaan oo allihii koonka keenay ay cilaaqo fiican iyo xidhiidh fiican uu dhex maro nolosha adduunyadan iyo taakhiro labaduba marka way u hagaagaysaa marka wax jadiida laynii sheegi maayo intii aad maqli jirteenuba laynigu celcelin aadaanka waa lagu celceliyaa uun salaada waa lagu celceliyaa uun qur-aankana waa lagu celceliyaa uun soonkuna sanad walba bisha ramadaanunbaa la soomaa xajka dadka tegaya ku noqnoqonaya meelo kaloo dheeraada ma tegaan waagii u horraysay xajku qofku tegay acmaashuu berigaa qabta unbuu haddana qabanuu samayn diintu maaha wax kolba zamanka maaragtaan intay ka fadhiistaan kolba waxay ku soo darayaan ma noqon karto shareecadda islaamka waa kaamil ilaahay baana qur-aankiisa ku sheego yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduuna baa ilaahay yidhi qur-aankan annaka ayaana soo dejisanay baa ilaahay yidhi annakaana ilaalshanayna baa ilaahay yidhi laa yaatiihi albaatilu min bayna yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid baa ilaahay yidhi baatil xaraf qur-aanka aanan ku jirina lagu dari kari maayo bay culimmadu yidhaahdaan xaraf qur-aanka maaragtaane ku yaallana laga saari kari maayo iska daa maaragtaane xuduuddiise bal qur-aanka xuruuftiisa ayaa maxfuudoo ilaahay baa ilaaliyey nimanka gaalada ayaa waxay isku dayeen inay mar musxaf ay dadka muslimiinta ay u qaybiyaan musxafkaasi suuradna kamay bedelin laakiin aayad musxafka ku taalla qur-aanka ku taalla ayay 3 xaraf oo keliya ayay ka saareen baa la yidhi oo 3daa xaraf ay ka saareen aayaddaas ayaa aayaddaa macnuhu isku bedelayaa markaasay taabaceen kamiyaad dhan oo qur-aan intay taabaceen ayay ka bilaabeen dadka mustadcafiinta ee adduunyada ku nool ee muslimiinta waddannaday ku nool yihiin ayay kitaabka qur-aanka markaa u qaybiyeen madaaristii ugu horraysay ay keeneen macallinkii ardayda u dhigayey macallin wuxuu ahaa aanan indhaqabinoo indhoole ayuu ahaa deedna ardaygii u horreeyey markuu kitaabka loo keenay ee kutubtii ardayda loo qaybiyey arday ugu horreeyey markuu kitaabka uu ka qaatay casharkii uu macallinka dushiisa uu kaga baxayey aayadda 3da xaraf laga reebay keliya waxay ahayd waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aayadda saxda macnaheegu waa sidaas laakiin 3da xaraf ay ka reebeen waa qooyinkiiyo ya-dii iyo ra'dii weeyaan waxay noqonaysaa marka aayadda la akhriyo waman yabtaqi alislaama diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aayadda macnaheega saxdu waxa weeyaan diinta islaamka diin aan iyada ahayn qofka diin ka soo dhigta baa ilaahay yidhi aakhire markuu yimaado laga aqbali maayo kuwa banka qiyaama ku khasaarayna ka mid buu noqonayaa baa ilaahay yidhi marka 3daa xaraf markii laga saarayna macnuhu wuxuu noqonayaa diinta islaamka qofka diin iyo dhaqan ka soo dhigta aakhire laga aqbali maayo kuwa khasaaray buuna ka mid noqonayaa ardaygii ugu horreeyey kitaabkaa kala furay ee casharka ka soo qaatay kitaabka markuu macallin indhoolaha uu ku dul akhriyey ayaa macallinkiibaa ku yidhi ku noqo halkaa sax maahine markaasuu yidhi macallin kitaabka wixii ku qoran baan kuu akhrinayaa anigu markaasuu macallinkiibaa yidhi kutubtaasoo dhan madaarisada ka soo qabtoo ka soo laaba buu yidhi qalad weeyaano waa dad kale ayna soo dhexgeliye indhaqaba maahina waa indhoole makriga gaaladu u maleegeen diinta islaamka inay wax yar ka bedelaan ka indhaha qaba iska daaya ka aan indhaha lahayn baa ilaahay ku ilaaliya shareecadiisa islaamka marka la bedeli kari maayo diintaana ilaahay wuxuu u soo dejiyey dadka
qofka bini aadankana ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego laguma qiimeeyo miisaanka xagga ilaahay qofka basharka marka la miisaamayo laguma miisaamo maadada qofka uu haysta iyo reerka uu ka dhashay waxa lagu miisaamaa iimaanka iyo tacalluqa ilaahay uu la leeyahay baa xagga ilaahay qofka miisaanka laga saaraa inaku bashar baa nahay oo indha ku garaal la nahay dadka waxa laga yaabaa markaan miisaamayna inaan ku miisaamno qofka quruxdiisa ama dhaqaalihiisa ama reerka uu ka dhashay ama aqoontiisa maadiga uu leeyahay ama awoodda adduunu qofku haysta laga yaabaa inaan ku qiimayno laakiin shariicada islaamka dhinaceega marka miisaanka saxda qofka laga saaro qofka waxay shariicadu ay ku miisaamaysaa waa maxay inna akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay baa yidhi yaa ayuha annaasu inna khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun khabiir ilaahay baa caza wajalla qur-aankiisa ku leeya ayuha annaasu dadow innaa khalaqnaakum annakaan ni samaynay baa ilaahay yidhi wa min dakarin wa untha waxaan iga samaynay lab iyo dhidig baan inaga samaynay lab iyo dhidig keliya adduunyada kuma noolaan karayaan sidaasoo kalena lab keliya adduunyada ku noolaan kari maayaan nolosha waa tawaasun ilaahay baa isku miisaamay habeenka maalinta laga horjeediyey kulaylkana qabowga laga soo horjeediyey dhalashadana dhimashada ka soo horjeeda faqiirkana qaniga ka soo horjeeda xanuunkana caafimaadka ka soo horjeeda farxadana murugta ka soo horjeeda muslimkana gaalka ka soo horjeeda cadaankana madowga ka soo horjeeda waa nolol ilaahay oo ku yeelay miisaan buu ilaahay ku dhigay markaasuu ilaahay leeyahay innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu markaasaan inii yeelay baa ilaahay yidhi shucuub iyo qabaa'il baan iniga dhex samaynay si aad maaragtaani nasabka aad u ilaashataan ood isku garataan oo qofkani meesha uu ka soo jeedo iyo halka uu nasabkiisu galaya aad u ogaataan baa ilaahay yidhi qabiilka inaad ku dhaqanta maaha waxaad qabiilka loo soo dejiyey qabiilka inaad sheegata ayaa loo soo dejiyey inaad ku dhaqanto looma soo dejin soomaaliduna qabiilka way ku dhaqantaa diinta islaamkana soomaalidu way sheegataa waa waxaan ummadaha kaga dambaynay la kacakufayna kacakuf een colaad iyo abaar iyo dhibaato aan uga bixilaanahay wax kale maaha qabiilkii shareecadu ay tidhi war qabiilka sheegta nasabkaaga sheego laguma diidano laakiin qabiilka ha ku dhaqmin maxaa laga wadaa qabiilka ha difaacin qabiilkaaga casabiyadu inay ku qaadan qabiilkaaga waxaa ha kaala weynaato islaamnimada iyo iimaanka iyo diinta islaamka ilaahay ku siiyey qofka ku qiimeeya qofka reerkaaga ha ku qiimayn inna akramakum cinda allaahi atqaakum baa layidhi ilaahay agtiisa waxay niigu maamuus badan kiinay niigu alla ka cabsiga badan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bay saxaabadu weydiiyeen man akramu nnaas dadka ayaa ugu maamuus badan noo sheeg markaa buu nebigu yidhi atqaahum kooga ugu alla ka cabsi badan baa ugu maamuus badan buu yidhi kooga ugu alla ka yaabka badan baa ugu maamuus badan laysa can hada nasaluka bay ku yidhahdeen yaa rasuula allah arrinkaa maaha isaga waxaan ku weydiinayno markaa buu nebigu yidhi fa yuusufu nabiyullah ibnu nabiyillaah ibnu nabiyillaah ibnu khaliilillah buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday reer noqotona shakhsiga ugu dadnimo fiican waxa weeyaane nasab fiican ka soo jeeda waa yuusuf calayhi salaam isagii waa nebi aabbihii waa nebi awowgii waa nebi awowgiisa labaadna waa ibraahiimu alkhaliil calayhi salaam afartaaba waxaa lagu qiimaynayaa waa diina ugu waa taqwad markaasay saxaabadu yidhaahdeen laysa can hada nasaluka nebi allow arrinkaan u jeednaan ku weydiinayna kaa maaha markaa buu nebigu yidhi fa can macaadin alcarabi tas'aluunii macrab macaadinteedaad i weydiinaysaan macaadin innaas sida dhulka macdantu ugu kala jirto ee dhulka uu kala qiimo badan yahay ayaa bini aadamkuna u kala qiimo badan yihiine ma bini aadanka macaadintiisaad i weydiinaysaan haddaad bini aadanka kuwa ugu qiimaha badan la i weydiisaanna buu nebigu yidhi waxa weeyaan waa kuwee carab markay noqoto zaman jaahiligii raggii iniigu raganimada badnaa unbaa markay islaamaanna iniigu raganimo badan buu nebigu yidhi waa hadday diinta islaamka iyo kuna fahmaan buu yidhi
saddexdii su'aaloodee nebiga la weydiiyey nebigu iimaan iyo islaamnimo xaggaa waa u dhaafi waaye dhegayso. saddexdii mas'aladood ee saxaabadu nebiga ay ugu celiyeen. carab haddaad ii weydiinaysaan kuwooga ugu dadnimada fiican waa kuwee? waa zaman jaahiligii markayna diintu ini soo gaadhin. dadkii inigu qiyamka fiicnaa, inigu dadnimada fiicnaa, ee dulqaadka badnaa, ee cafiska badnaa, ee naxariista badnaa, ee ixsaanka badnaa, ee karamka badnaa, ee shujaacaddii raganimada lahaa, markay islaamaan ayakoon baa inigu raganimo badan buu rasuulku yidhi ogaada. islaam baa lagu qiyaasay wax walba. isagoo fadhiya ayaa nin baa halkaas soo maray. nin ag fadhiyey buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninkaa maxaad ku sheegi lahayd? markaa buu yidhi yaa rasuul allah, ninkaas waa wajahadii quraysheed weeyaan. quraysh, reeraha quraysheed, reeraha ugu qiimaha badan leh, ugu magaca weyn le buu ka soo jeedaa. waa nin weliba ninkaasi waa nin codkar ah. hadduu istaago uu dadka la hadlo dadkao dhan baa u joogsanoo waa la maqli hadalkiisa. hadduu reer u yidhaahda gabadh baan iga rabaayo ii guuriyana waa loo guurin. hadduu cid u ergeeyena ergadiisa waa la aqbali. markaa buu nebigu aamusay calayhi salaatu wasalaam. haddana waxaa soo maray nin kale. markaa buu yidhi kaana maxaad odhan lahayd bal sheeg? wuxuu yidhi kani waa ducafada muslimiinta weeyaan buu yidhi. hada min ducafaa'i almuslimiin. hadduu hadlo hadalkiisa cidna dheg u dhigi mayso. hadduu cid yidhahda ha u shafeecad qaadid oo ergaha u noqotid, ergadiisa cidna aqbali mayso. hadduu yidhaahda cidii gabadh ii guuriya cidna u guurin mayso. waa ducafada muslimiinta weeyaan. markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay kii hore oo arlada laga buuxiyey kaa keliya ilaah agtiisa ka qiimo badan buu rasuulku yidhi. u fiirso, kaabaa ilaah agtiisa ka qiimo badan. innaku basharka waxaan maanta ku qiimaynaynaa waxyaabaha isheennu ay qabanayaan, laakiin shareecaddu qofka waxay ku qiimaynaysaa iimaanka iyo yaqiinta iyo ikhlaaska iyo taacadda iyo xidhiidhka addoonku ilaahay uu la leeyahay. taa bay shareecaddu qofka bini aadamka ku qiimaysaa. zaahir banu xiraam radia allaahu canhu, saxaabiya la odhan jiray, magaalada madiina ma deganayne miyigeeguu deganaa. markuu miyiga imanayo uu magaalada uu soo socdo, hadyadaha miyiga laga soo helo buu nebiga u keeni jiray. hadyad canaha ama subaga ama malabka ama hilibka, waxyaabaha buu nebiga u keeni jiray sal alla alay wasalam. markuu isaguna magaalada madiina uu ka caraabayo reerkiisa ku noqonayana, ree miyigu waxay magaalada uga baahdaan buu nebigu markaa isagana u diyaarin jiray. dabcan dadka ree miyigu magaalada maxay ka qaataan? sokor iyo saliid iyo bariis iyo. zamankana wixii miyigu magaalada uga baahan yihiin ayuu nebigu magaalada madiina uga diyaarin jiray. markaa buu nebigu odhan jiray inna zaahiran baadiyatuna wa naxnu xaadiruuhu baa nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. ninkan zaahira waa ree miyigayagii, annaguna ree magaalkiisii baa nahay buu rasuulku odhan jiray. waliba nin wuxuu ahaa daciifa, miskiina, reemiyi, magaalada madiina. markaa mararka qaarkood isagii rasuulka ayaa maskiidka dhexdeeda intay ku hadhaan bay ku sheekaysan jireen. markaa buu nebigu miyiga, nolosha miyigu ka waraysanayay ku dhaqmaan, waxay ku dhaqmaan cadaadkooga. maalin maalmaha ka mid a ninkaa zaahiree noocaasee reer baadiyaha oo soo lugeeyey, nin reemiyi oo soo lugeeyey waad garan kartaa maaragtaanay naqaska jirhkiisa ka soo baxaya, ayaa magaaladii madiina suuqeedii buu iska tegey. badeecaduu markaa watay waxbuu markaa u iibgeeyey, waxna uu ka iibsanayay suuqa. markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam suuqii madiinu nebigu soo galay, wuxuu arkay ninkii zaahiroo meesha fadhiyo sii jeedo wax gadanaya. markaa buu nebigu xagga dambuu ka istaagay, deedna labada indhood buu nebigu qabtay. markaa buu war addoonkan aniga ale ayaa iga gadan oo iga iibsanaya.
ile zamanka addoommaa la iibin jiray moogtahay meelaha qaarkood way jireen waxyaabaha shareecadda islaamku ay horumarka ay shareecadda islaamku caalamka u keentay waxaa ka mid ah addoomihii la iibsan jiray diinta islaamka horeysa wixii oo dhan oo baabaysay markaasuu ninkii u cadhooday markaa ila nin xor oo carabiya oo la leeyahay waa addoon ayaa iga gadanaya oo iga iibsanaya uu xanaaqay markaa mar alle markuu dareemay cidda gadaashiisa taagan inay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laana gacanta nebi maxamed gacmaha way ka duwanayd anas binu maalik oo khaadimkii nebigeenna ahaa waa kii lahaa maan taaban buu yidhi maro xariirah oo ka jilicsan kafkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maan urin buu yidhi carfi ka udgoon badan carfiga jidhka nebi maxamed ka soo baxaya innaka maalintii magaalada markaad u dhaadhacdee suuqa aad ka soo noqonayso adigoo maaragtaane khamkhamayaa soo noqonayo oo deedna dharka markaa waad iska beddilaysaa walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar alliga markuu dhididaba jidhkiisa isaga udgoon baa ka soo baxaya jidhkiisa udgoon mar alliga markuu arkay gacantan inay tahay gacantii nebiga jileeca carfiga soo baxaya uu yahay carfigii udgoonkii jidhkiisa ka soo baxaya markuu gartay inuu nebi maxamed uu yahay shakhsigan ayuu dhabarkii nebiga markaa ayuu dhabarkiisii nebiga ku xamaaray laabtiisii markaa buuhi yaa rasuul allah oo haddii aad tidhaahdid addoonkaygii weeyaan ahan iibiyana aniga ayaa iga kaa iibsanaya buu yidhi nin faqiirah oo miskiinoo reer baadiye ayaan ahay buu ka yidhi kaa bixi maayo layga kaa iibsan maayo buu ku yidhi markaa buu nebigu isku sii dhajiyey isaguna markaa buu yidhi lasta bikaasidin ma tihid shakhsi qiimo hooseeya bal anta cinda allaahi qaali buu nebigu ku yidhi waxaa tahay shakhsi ilaah agtiisa qiimo weyn kula tahay buu nebigu ku yidhi oo reer miyi kuma miisaamin nebigu dharkiisa meesha uu degan yahay waxa uu nebigu ku miisaamayaa qofkan iimaankiisa iyo camalkiisa wanaagsan qofka waxa bannaankiisa yaalla qiimo uma yeelaan adiga waxa gudahaaga ku jiroonbaa ama qiimo kuu yeelaya ama qiimahaaga dhulka gelinaya ogow waxa dibadda inaga yaalla waa maxay warshadu qofka bini aadanka bannaankay ka taallaa gaadhigu qofka bini aadanka bannaanku ka yaallaa lacagtu qofka bini aadanka bannaankay ka taallaa daarihiisu qofka bini aadanka dibadday ka yaallaan xoolihiisu qofka bini aadanka bannaankay ka yaallaan wax gudaha kaga jira maaha waxa adiga bannaanka kaa yaalla qiimo kuuma yeelaye waxa bannaanka kaa yaalla adiga qiimo u yeelaya lacagta maynaka qiimaha u yeella mise iyada qiimay noo yeesha bal si fiican uga jawaaba laakiin zamankeennan maanta eeg qofka bini aadanka maxaa lagu qiimeeyaa maanta lacag baa lagu qiimeeyaa lacagta innakaa qiimaha u yeellay dad baa ka fadhiistay dad xil loo dhiibtay oo talo ummadeed loo dhiibay ayaa intay ka fadhiisteen bay yidhaahdeen maxaan wax ku kala gadannaa markaasay yidhahdeen lacagta noocaasa wax ku kala iibsanno deedna markaasaa lagu qoray tanna 100 shilin tanna 1,000 shilin tanna 5,000 tanna 10,000 soddon sano ka hor lacagtii waddankan ka shaqaynaysay ma ka shaqaysaa hargeysa maanta kama shaqayso sababta waa maxay waa laga guuray dadkii baa ka guuray tiiyoo tan kale qaateen marka lacagta innagaa samaynay nambaradana innagaa ku qorannay adigaa markaa lacagta qiimo u yeelaya lacagta adigaa sitee iyadu kuma sidato laakiin qaladka maanta bini aadanka ka dhacay waa maxay lacagtii baan bini aadanka ku qiimaynaynaa maanta daartaa ku qiimaynaynaa daarta adaa dhisay daartu qofka bini aadanka ma dhistay isagaa qofku daarta dhisay gaadhiga qofka bini aadanku ma wadee isagaa gaadhiga wata gaadhi baan soo wataayo meel heblaayaan soo marayaa baad odhanaysaa mise gaadhi baa ay wada baad odhanaysaa markaad sheegayso tilmaamta gaadhi baa ay wada mise gaadhi baan wataa gaadhi baan wataa lacag baa isidda mise lacag baa sitaa aqalkan anaa dhistay oo aqal baan dhisayaa mise aqalka aniga i dhisaya wayna fahamnaa waxaan materiyaalka la yidhaahdo ashyaada bini aadanka qiimo uma yeelayso bal bini aadanka qiimihiisa dhulkay gelisay dhulka maanta maalin dhaweyto magaalo gobollada dhexa ku taalla muddo imika 2 bilood 3 bilood laga joogo
ayaan diyaarad ka raacay xamar baa ku socdaa nin baa isoo ag fadhiistay markaa ninkan waa nin xanuunsan mara ku duuban saasuu markaa kursiga ugu tiirsan yahay nin walaalkii oo la socday baa yimid oo igu yidhi sheekh ninkan dhaawac baa gaadhee u ducee markaasaa idhi waa insha allah allah inoo shaafiyo waan u ducaynay markaasaa idhi maxaa gaadhayoo madaxa markii marada laga qaaday faas baa lagu googooyey faas xagga minallahi buu ka baxay markaasaa idhi war qofka sidaa u dilay muxuu yahay muxuuse ninkani sidaa ugu dhintay wuxuu idhi awr uu isagu lahaabaa awr uu nin kala lahaabuu ka cunay buu yidhi ninkii awrka kale la cunay lahaa ayaa ka nafaas ku googooyey buu isagoo hurda waa waxaan indhahayga ku soo arkaan idiin sheegaya halkaan maanta marayno dadnimadeennii laba awroo islaysay ayaa qof bini aadana qudha kaga jarayaa maanta halkaan marayna baleeg waa bashar bani aadam khalqiga kaloo dhan ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo ilaahay waa ka yidhahda walaqad khalaqna aلsamaaءa wاlأrضa wmaa baynahumaa fii 6 أyaamin wmaa masanaa min luguubin wax kastoo ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo khalaqnaa buu yidhahdaa laakiin aadam calayhi الsalaam abuurkiisa markuu ilaahay sheeganayey daatadiisaa ilaahay u nisbayo wuxuu yidhi khalaqtu biyadaya khalaqtu basharka qiimahaa leh ayaa maanta adduunka dusheeda halkaasay marayaan muslimiinta ka warrama qiimo dhac awr cunay in qof bini aadana loo dilo xagga min allaahi unbuu ka badbaaday inuu kaga gooyuu doonayaa lagu leeyahay lazawaalu dunyaa ahwanu cala allah min ihraaqi dami lmuslim bikayri xaqin buu nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam adduunyada dhan oo meesha ka baxdo oo la waayo ilaahay agtiisa waxay kala fududahay buu nebigu yidhi dhiig qof muslimoo xaqdarro lagu daadiya buu rasuulku yidhi dhiig muslima dagaal baa la galay jihaad nin dhinaca mushrikiinta ka soo jeeday baa dhufays ku dhacay nin ansaariyaa ku qabtay seeftii markuu seeftii lagu qabtay u arkay in la hayo ayuu iska yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah uu ka daayay markaa ninkii ansaarigii dagaalkiibuu hore ka sii galay ninkii kelmaddan yidhi ee dhufayska ku jiray markuu arkay in laga sii jeestay intuu ka daba tegay buu booqnaha ku gooyey seef haddana dhufayskiibuu ku dhacay ku kalaa ku qabtay seeftii kii kalena markaasuu u ashaahato wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah uu ka jeestay kiina qoortuu ka gooyey usaamata binu zayd baa arkaya allaha raalli ka noqdeen kolkuu seeftii ku qabtay buu u ashaahatay kama joojina qoortuu ka gooyey usaama ninkii dagaalkii markuu dhammaaday warbixintii baa nebiga loo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam saadiqu lmasduuq wa qaa'idu ljaysh asagaa markaa loo celiyey warbixintii jihaadkii siduu u dhacay wixii qaladaad halkaa ka dhacayna nebiga waa loo sheegoo la yidhi nin ashahaatay ayuu usaama diluu madaxa kaga gooyey seef markaaba nebiga wejigiisii baa bedelmay calayhi salaatu wasalaam yaa usaama aqataltahu bacdamaa an qaala laa ilaaha ila allah waaba markuu kelmaddaa yidhi kadib miyaa dishay markaasuu innahu kaana mutacawidan biha yaa rasuul allah uu ku magangelayey laba ninoo muslimiinana hortay buu ku dagayuu qoorta kaga gooyey markaa buu nebigu ku yidhi qalbigiisa intoo dillaacisay maad ogaatay inuu kelmaddaa dhab u yidhi iyo inuu carabka ka yidhi halkii uu nebigu fadhiyey uu ka kacay cadho darteed markaasuu usaama nebiga xaynka qabsaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yaa rasuul allah ilaahay dembidhaaf ii weydii ilaahay dembidhaaf ii weydii markaa buu nebigu ku yidhi yaa usaama maalinka qiyaamaha seed yeeli doontaa markuu ninkaasi banka qiyaama uu la yimaado isagoo kelmaddaa ku celcelinayo le laa ilaaha ila allah seed yeeli doontaa u fiirso waxaan tamaniyey buu ihi usaamata binu zayd wa xibbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isagiiyo aabbihiiba waa labada nin
ee nebi maxamed saxaabadiisa ugu jeclaa weeyaan. waxaan tamaniyey buu yidhi maalintaa intii ka dambaysay islaamnimada in la ii xisaabin lahaa ayaan tamaniyey buu yidhi, intii ka hore waxba layga soo qaadeenba. kelmaddani waa kelmad culus, ayadaa markaa qofka bini aadanka qiimaha u yeelaysa, ayadaa qofka dhiiggiisa ilaalinaysa, ayadaa qofka maaragtaan cirdigiisa ilaalinaysa, ayadaa qofka bini aadanka shareecaddu ay ku miisaamaysaa. low wudicat samaawaatu sabcu waalaraadiinu fii kafatin walaa ilaaha ila allahu fii kafatin larajaxat bihinna laa ilaaha ila allah. waa nebi muuse calayhi salaam ayaa rabbigii ku yidhi kelmadaan kugu barya isii, markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dheh. yaa rabbi kelmaddan addoommahaaga wan wanaagsan oo dhan baa wada isticmaalee tu aniga ii gaaramaad isiisid. markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa, toddobada cer iyo toddobada dhul haddii miisaanka kafad la saaro, toddobada cer imsaa makhluuqaad ku nool, toddobada dhul imsaa khalqi ku noole khalqi haysaa, waxaasoo makhluuqaada haddii la soo qaado kafad la saaro, laa ilaaha ila allahna kafadda kale la saaro, laa ilaaha ila allah baa ka culus baa ilaahay yidhi. innaka zamankeennan aragtidaas badishay, maadaama zamankeennan dadku maaddada ay ku dadaaleen, waxaa dhacday qofka bini aadanka in lagu qiimeeya maaddadiisa. zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kor maray iimaanka iyo maaragtaan tacalluqa dadku ilaahay ay la leeyihiin, markaasaa qofka muslimka lagu qiimeynaya iimaankiisa iyo camalkiisa. magaalada madiina nin la odhan jiray julaybiib radia allaahu canhu, nin wuxuu ahaa damiima oo aan aad u qurux badnayn, weliba iska kaftan badan oo meelaha dadka la kaftama. faqiir magaalada madiina aqal iyo qaraabo iyo qaran midna kuma leh. mar walba wuxuu la fadhiistaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo nebigay wada fadhiistaan. marka maskiidka laga kala dareera nebiga isagaas ku hadha. maalin buu nebigu ku yidhi ma guursatay? markaasuu yaa rasuulallah aniga ayaa ii guurinaya, ninkaygan iska faqiirka, xoolo ma lihi, qurux ma lihi, deegaankaygii maaha magaalada madiina, ayaa ii guurinaya. xaliif weliba ree ansaareeda buu la ahaa xaliif. markaasuu nebigu maalin maalmaha ka mida buu ku yidhi haddana ma guursatay? markaa buu yaa ii guurinaya aniga nebi allow. laba saddex jeer markuu nebigu sidaa u weydiiyey, nin ansaari oo reer madiine ah oo inantiisu inay qaan gaadhay uu nebigu ka warqabay, ayaa nebigu ku yidhi inantaadaan kaa soo doonayaayo isii. markaa buu yidhi oo nebi allow maadaa inantayda iga soo doonaya? war haa inantaadii baan doonayaayo isii. markaasuu ninkii aad ugu farxay ansaarigii, waad iga heshaa wax u eg. markaa buu nebigu ku yidhi anigu uma rabin naftaydee yaad u rabtaa haddaa? julaybiib baan u rabaa. waa nin magaalada madiina laga yaqaano, miskiina, faqiira, weliba aan qurux badanna lahayn oo dad maaragtaane quruxsanna aanan ahayn, laakiin waa shakhsi iimaaniya ilaahay ku xidhan oo asxaabada ka mida weeyaan. markaa buu yidhi yaa rasuulallah, ma julaybiib baad inantayda? haa julaybiib baan u doonaya, adu gabadha maba doonaya, julaybiib baan u doonayay. markaasuu yidhi julaybiib ahaa, bal inanta hooyadeed baan tala geline ii kaadi buu ku yidhi. markaasuu u tegayoo wuxuu ku yidhi naadee gabadheenni waa laynaga soo doonay. markaaba ooya inaga soo doonay dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. markaaba tuwaba nicmade, dee nebigu naftiisa lama rabo, ayuu la rabaa julaybiib ahaa. allahayka alla oo kale isticmaashay. markaas waar sownakii hebel iyo hebel intaasoo oday ay wiilashooda nooga soo dooneenan u diidnay maabay ku tidhi. julaybiibna sawninkaa taqaanid maaha, dee nebi maxamed baa soo dooneen miyaan diidi karnaa? odaygii iyo islaantii oo hadalka isku celcelinaya, inantuna markaa aqalka gadaashiisay fadhida xagga dambe. innaga zamankeenna gabdhaheennu bannaankay u soo baxeen, laakiin zamankaa dadku way fiicnaayeenoo gabadhu aqalka kamay soo baxayn, gabadhu ma soo haasaawo tegayn, gabadhu ragga ma soo eeganayn, gabadha waxa u soo haasaa waayey aabbaheed, gabadha waxa u haasaa waayey adeerkeed, gabadha waxa u maqnaa walaalkeed,
gabadha waxa uu maqnaa abtigeed hooyo la dhashay ninka saxaabiga ansaariga markay gabadhi u dhalato ee inantaasi ay qaan gaadho ay nabiga u sheegi jireen ku oran jireen nabi allah inantaydii way qaan gaadhay haddaad adigu adoonaysana waa ku diyaar haddaad cid u rabtana nabi allah cidaad u ishaartaba waan u guurinay soo sheeg bay oran jireen sidaas marka nabigu ku ogaaday gabadha inay qaan gaadhay dadna inantu xagga dambe fadhida ayaa ku tiri ma nabi maxamed oo ikiin weydiistay baad maya ku celinaysaan bay ku tiri de nabigu kuma rabe julaybiib buu ku rabaa baa lagu yidhi markaa bay ku tiri wa in kaana julaybiiban bay ku tiri markaa julaybiib haba noqdaba ilaahay iyo rasuulkiisu anigay dayici maayaan bay tidhi meel xuni dhigi maayaan marba nebi maxamed hadduu ikiin weydiistay waa ku kalsoonahay bay tidhi ilaahay ma dayacayo ibixiya markaasaa ninkii saxaabigii baa nebiga u yimiday yaa rasuulallah gabadhii waad naga heshaa ninkaad sheegaysay bay yidhahdeen waa ku deeqna sii markaa buu nebigu u yeedhay saxaabadii war julaybiib gabadh baa la siiyee bal ha loo gurmado markaa nin walba wuxuu hayay buu siiyey war bal waa kane aqalkii mariinkii iyo meherkii iyo waxaad hawshii intan ku gal baa lagu yidhi magaalada madiina markaa suuqa madiina laga naadin jiray marka jihaadka la baxayo dhawaaq buu maqlay marka la leeyahay ilaahay dartii ayaa u baxaya oo ilaahay jidkiisa u dhimanaya oo janno ku bishaaraysanaya jihaad baa loo naadinaya markaasuu fikro wuxuu yidhi ma gabadhaa baad la caqal gashaay ood iska guursataa lagu siiyey waa xuruutiine mise xuuralcayntaad ku hoyataay oo jihaadka intood u baxdo ayaa shahaado ilaahay aad weydiisataa buu yidhi markaa buu wuxuu ku qancay oo uu doortay inuu jihaadka iska raaco ciidanka inuu dhinac ka raaco dagaalkii baa la galay muslimiintu way guulaysteen maydkii dhaawacii baa la kala gurayaa saxaabadii buu nebigu ku yidhi war ma cid baa iniga maqan maya waan dhannahay dhaawacii ma dhan yahay haa shuhadadii ma dhan tahay haa aniguna laakiin nin baan tabayaa buu nebigu yidhi anigu nin baan tabayaa waa ninkee waa ninka nebi maxamed saxaabadiisu ay tabi waayeen ka warrama nebigu tabay ninkee tabaysaa julaybiib doondoona waxaa la helay 9 nin oo mushrikiina intuu dilay dhaawacay soo gaadhsiiyeenna u dhintay oo dulya allah lagu tegay meydkii dhexdeedii markaasaa nebigu yidhi soo qaada kaasaan ka mid ahay buu yidhi anigu sidaas yacni siduu u dhintay waan jecelahay weeyaan sidaan rabay buu u dhintay haddaan dhiman lahaa siduu u dhintay baan u dhiman lahaa weeyaan macnuhu haadaa minii wa ana minhu baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu soo qaaday nebigu intii qabriga loo qodaayo dhulka ma dhigin meydkiisa xataa baa la yidhi nebi maxamed dhabtiisuu ku haya dhabtiisa bal fiirso gabadhii buu nebigu xasuustay markaa buu yidhi ilaahow gabadha uu ninka uu ka dhintayna ilaahow nolosha cidhiiri ha ka gelin arsaaqadana se roobka kaga dhig buu rasuulku yidhi gabadh waxay noqotay barakaysan taajirada dhaqaalo leh oo dhaqaalahayga diinta ku bixisa oo rixin barakaysan leh markaasay odhan jirtay ducadii nebi maxamed waa kaas waan ka faa'iidaystay kuma qiimayn nebigu qofka shakhsiyaddiisa maa wuxuu qiimaynayo waa saxaabi mu'min ilaahay rumaysan weeyaan innakana waxaa laynaga rabaa zamankeennan maanta dadka muslimiintu inay isku qiimeeyaan islaamnimada alislaam muslim walaalkay waa muslim almuslim akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yuslimuhu walaa yakhdulhu baa nebigu yidhi man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi muslimka kale waa walaalkii inuu maaragtaana garabkiisa ka bixin inuu cadowgiisa u hiilin inuu cadowgiisa u gacan gelin inuu xaqiisa ku xadgudbin ninka walaalkii xaajadiisa u quminaya intaad walaalkaa muraadkiisa adigu aad ku maqan tahay adigana muraadkaaga ilaahay baa ku maqan intaad walaalkaa u gargaarayso adigana ilaahay baa kuu gargaari ibnu cabbaas allah raalli ka noqday isagii aabbihiibe isagoo maskiidka dhex fadhiyo muctakafa ayuu arkay nin muslimiinta ka mid oo meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu ibnu cabbaas ninkii buu la fadhiistay wuxuu ku yidhi adigan murugoonayey maxaa kugu dhacay balii sheeg wuxuu yidhi waxaan ahay nin mukaatib baan ahayoo
waxaana addoon sayidkiisii kula ballamay inaan soo shaqaystoon magaalada galo lacagtuu markaa iga rabayna aan u keeno deedna aan isxoreeyo xilligii markaa lagu ballamay ayaa la joogaayoo iga dhammaatay lacagtiina ma hayo shaqana ma helin buu ka yidhi markaasuu yidhi dee ma jeceshaa inaan kaala hadlo markaa buu dee ha inuu muddada ii dheereeya haddaad igala hadlayso waan jeclaan lahaa markaa waan kaala hadlayeyna mari albaabka markuu u dhowaaday buu ka yidhi yaa ibna cabbaas ictikaaf baad ku jirtee maad ilowday buu ku yidhi markaasuu yidhi ma iloobin bal fiirso muhim iyo aham muhimmaat alumuur bay kala yaqaaneen umuurta shareecadda way kala miisaan weyn tahay inaad masjidka ku ictikaaftaa waa cibaado adiga kuu gaara adaa ilaahay u dhowaanaya walaalka inaad wax tartana waa cibaado nafcigeedii ummadda uu gaadhaya weeyaan saxaabada waxaa lagu tarbiyadeeyey inay khalqiga anfacaan baa lagu tarbiyadeeyey inay khalqiga nabadgeliyaan inay khalqiga ilaahayna ay wax taraan markaasuu ictikaaf inaan ku jiray ma halmaamsani laakiin waxaan kuu sheegayaa nebi maxamed baan ka maqlay isaga oo leh man mashaa fii xaajati akhiihi ninka nin walaalkiiya xaajadiisa inuu u qumiyo u dhaqaaqa ee u socda buu nebigu yidhi ama xaajadaa ha u soo qumiyo oo halkii la doonaya ha ka gaadhsiiyo ama inay xaajadaasi hirgelinbe 10 sannadood nin ictikaafay buu la ajar yahay buu rasuulku yidhi qof muslima icaanadiisu inaad caawisaa wax sahlan ma aha inna min axabbi alacmaal idkhaalu suruuri fii qalbi mu'min buu nebigu yidhi acmaasha ilaa agtiisa loogu jecel yahay waa qof mu'mina oo walaalkaayo wuxuu ka farxayey wuxuu ku farxi lahaa aad u yeeshood u samaysid weeyaan ashbacta jawcatahu baa nebigu yidhi asagoo gaajoonaya baad aragtay waad dargisay satarta cawratahu walaalkaaga muslimka ceeb uu leeyahay baa kuu daahirtay waad asturto waad qarisay ceebta walaalka muslimka waa la qariyaa lama sheego qadayta lahu xaajatan muraad uu lahaa baad intood u raacday baad u soo qumisay waa acmaasha ilaahay ugu jecel yahay buu nebigu yidhi mu'minka oo laga farxiyo mar walba mu'min saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxaa lagu tarbiyadeeyaa ayaka inay wax istaraan hadday waxtar isku yeelanayna inay dhibkooga kala haystaan ay kala badbaadaan calaa kulli muslimin sadaqa buu nebigu yidhi waagii baryaba qof kasta oo muslima sadaqa laga rabaa inuu ka bixiyo jidhkan waa nicmad ilaahay ku sii maad iibsan markaa saxaabigii xadiiskaa maqlayay baa yidhi in lam yajid oo qofku wuxuu sadaqadaysa hadduunan haysanna markaa buu nebigu yidhi fayacmalu biyadihi fayanfacu nafsahu wayatasadaqu gacantiisuu ku shaqayni shaquu abuuri walaalkiisa muslimkaa waxbuu tari naftiisana waanfici buu rasuulku yidhi in lam yastadic hadduuna karina baa lagu yidhi yuciinu dalxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee dulmiga lagu hayo ama waa madluuma waa loo itaal sheegtay ama waa lagu gardarooday ayuu odhanayaa war ka daaya buu odhanayaa carabkaasuu uga nasteexaynu dadka naasix buu ummadda u noqonayaa weeyaan hadduuna sidaa samaynna baa nebiga lagu yidhi dadku wanaagga faraya khayrku ummadda u sheegi salaaddu ummadda ugu yeedhi masjidku ummadda ugu yeedhi khayrku ummadda ku baraarujin hadduuna sidaa yeelinna baa nebiga lagu yidhi sharkiisu ummadda ka haysanu meel kala fadhiisan buu rasuulku yidhi taas waa sadaqad ta u yar waa taas shar baa kugu abuuran khayrna uu kugu abuuran yahay sharku halkanuu ka soo baxaa jidhkeenna khayrkuna jidhkaaguu ka soo baxaa waa inaad garataa ayuhalmuslim haddaad nafcigaaga ummadda uunan gaadhaynin sharkaaga ummaddu ha ka nabad gasho sharkaaga taasuu nebigu ummaddiisa baray calayhi salaatu wasalaam laakiin habeenkii kacayoo ducaynaya waa afarta adduunyadu ku taagan tahay afarta haddii ay adduunyada jirin bay culimmadu leeyihiin haddii cilmiga culammadu aynan jirin
dadku jahli bay ku dhammaan lahaayeen haddii deeqsinnimada aqniyadu haddaynan jirinna dadku faqri iyo abaar bay la halaagsami lahaayeen ducada fuqaradu haddaynan jirinna ilaahay adduunka dhan ba uu rogi lahaa baa la yidhi cadliga umaradu haddaynan jirinna daalimku ummadda dulmiga buu u geysan lahaa oo uu ka qaadan lahaa qawigu ka miskiinka wuxuu hay uu ka qaadan lahaa afartaas adduunyadu ku taagan tahay saddex hadday adduunyada jirinna baa la yidhi hee samada roobba kama yimaadeen dhallinyarada sujuudaysa odayada da'da waaweyn leh ee rukuucaysa bahaayimka dembi iyo ku dembi aanan gelin ee caqliba aan lahayn ee daaqaaya saddexdaa hadday adduunyada joogin baa la yidhi samada roobbaynu ogama yimaadeen baa la yidhi dhallinyarada majmuciinan maasha allah dhallinyar buu u badan yahay ninka dhallinyarada ee saajid sujuudaya maxaa laga wadaa leannan xilliga dhallinyarnimadu waa xilliga qofku uu lumu shaydaanku lumin kara weeyaan ninka xilligaa masjiidka soo galay ee diintiisii baranaya ee masaajidda ku taxan ee culammada ku taxan ee dacwadda iyo nasiixada culammada qaadanaya ee aakhiradiisa ka fikiraya ee shahawaadkiisa iyo khafladdii suuqa intuu ka soo hadhay masaajidka ilaahay soo galay ee sujuudaya waa aaya min aayaati illaahi weeyaan iyo shuyuukhu rukac odayada da'da waaweyn leh xanuunsan ee socodku dhibayo ee foorarka rukuucdu ay dhibayso iyo bahaayimka dhulka daaqaaya bahaayimku iyaku dembi ma gelin zinana kama dhacdo ilaahayna ma caasiyaan cidna ma dulmiyaan qaflad lama yimaadaan ribo ma qaataan rashwo ma qaataan qabyaalad kuma dagaalamaan dhiig bini aadan xaqdarro kuma daadiyaan waa bahaayimka daaqaaya markay abaartu ay dhacdo cirkay eegaan waxay lisaanulxaal ay ku yidhaahdaan ilaahow dembiga ay galeen bani aadamku annaka hanagu cadaabine ilaahow roob nasiib bay idhaahdaan waxaa laga yaabaa meelo badanoo maanta adduunyada dad badan ay ku nool yihiin in bahaayimka sababtooda loogu nicmeeyey ay yihiin kuwa loogu nicmaynayo saddexdaas ayaa ilaahay noogu nicmaynaya marka ilaahay han jeclaanno oo diinteenna islaamka han jeclaanno oo diinteenna islaamka han isku jeclaanno oo diinteenna islaamka han isku nabadgelinno oo ummadi hadday doonay inay jirto saddex khasladood baa laga rabaa ummaddaas madaxdeedaa laga rabaa mas-uuliinteedaa laga rabaa odayadeedaa laga rabaa cuqaasheedaa laga rabaa salaadiinteedaa laga rabaa mas-uul kasta intuu doonay mas-uuliyaddiisu ha leekaatee saddex ummaduhu way ku jiraan saddexna ummaduhu way ku dumaan baa la yidhi ammaanada iyo cadaaladda iyo sidqiga saddexdaa ummadi hadday la timaaddo oo mujtamaca laga arko oo xukuumaddiisa laga arko ummaddaasi way riiq dheeraanoo way barakoobi ammaano ciddii wax kuu dhibatay ammaanada u hay cadaaladda sameeyo xataa labada ummadeed wada dhashaa u kala eexan u cadaalad samee sidqi waa inaad yeelataa qofka muslimku been ma sheega run sheega waa inaad noqotaa saddexdaa ummaduhu way ku jiraan wayna ku barakoobaan wayna ku riiq dheeraadaan wayna ku horow maraan saddexna mujtamaca way dumisaa khaainnimada ummadda way dumin beentuna ummadaha way dumisaa dulmiguna ummadaha uu dumiyaa saddexdaas maanta zamanka innagu aan joogno cadaaladdu caalamka way ku yar tahay ammaanaduna way yar tahay runtuna way yar tahay kafadar mujtamaca maanta inta runta sheegta waxaa laga yaabaa inta beenta sheegtaa ka badan mujtamaca maanta aan ku dhex jirno inta salaada tukata inta bilaa salaada ayaa ka badan mujtamaca maanta aan ku dhex jirno inta maaragtaanay macaasida ku jirta inta khayrka ka shaqaynaysa inta sharka ka shaqaynaysa ayaa ka badan mujtamacaan ku dhex jirno inta diinta danaynaysa diinta baranaysa inta maadada baranaysa ayaa ka badan mujtamacaan maanta aan ku dhex jirno inta masaajidda camiraysa
inta maqaaxiyaha camiraysaa ka badan mujtamaca ku dhex jirno inta islaamnimada isku jecel waxa ka badan inta qabyaalada isku jecel baryahan qabyaalada waan aad baan ugu soo daraa maxaan limaada waa waaqic maanta in laga hadlo qabyaalada waaqic weeyaan dad ba afuufaya qabyaalad oo dhiigga muslimka isku xalaalaynaya ha ku aakhiraysan kuwa hadalkooga ha ku aakhiraysan qabiilkaad ka dhalatay sheego laguma diidano laakiin ha ku dhaqmin qabiil ha ku dhaqmin muslim waxaad islaamnimada ku dhaqan qabyaaladana iska sheego saxaabada rasuulku qabiil way lahaayeen ninna qabiilkiisa lama diidi jireen nebigu uu sheegan jiray abtigii muxuu odhan jiray irmi yaa sacad war sacadoo leebka gan buu odhan jiray nebigu daaka khaali aniga abtigay wakaa iniguna abtigiini tusa buu nebigu odhan jiray abtiga nebi maxamed uu ku faanayey ma abti barjeeniya buu ahaa hor sheega de yaa dee ma ahayn abti maqaaxi fadhiya ma sheega nebigu abti qayilayo qaxootiya oo ciyaalkiisa ina qaxiyey inta kalena sii qaxinayo dariiqay maraan u raadinaya dee wax la sheegta maaha kaas wixii konton jir ka weyn caqligay ku shaqaynayaan inaan badilaan u baahannahay maanta badila cuquusha waa inaan badillo waa inaan helaa mujtamac sida saxda u fikiraya sheekh maxamed cabdiraxmaan weydiiya maraykan isagaa ku noolaa muddo badan oo barina nagu soo dhoweeyey gobolkuu joogay ilaahay ha inoo barakeeye maraykan waa imise qabiiloo isku tegay maraykan weydiiya isaga waa imise ummadadoo isku tegey 54 state mise 53 state maraykan iskamay noqon ummad baa intay ku u guurtay intay qabsadeen bay samaysteen nidaamkay samaysteen ummadahoogiina way ku horumariyeen xagga daahirka caalamka oo dhan way ku qabsadeen maanta war waxaan u baahannahay inaan mujtamac sida saxda u fikiraya inaan keenaan u baahannahay inaku mujtamac ilaahay ku xidhan baan u baahannahay oo nebigiisa ku xidhan calayhi salaatu wasalaam oo islaamnimada ku xidhan oo wixii hore may ma soconayso wixii hore way soconi weyday geeskan afrikan ku noolahay taariikhdiisa akhrista waxay soo mareen dadkani way socon weyday wixii la samaynaya la rarakibayey ma soconayso waxaa soconaysa islaam muslim baan ahay muslim dadkaad ku faanaysid kuwa qayilaya yayna noqonine kuwa diinta u dadaalaya ku faan aniga abtigay wakaa buu nebigu yidhi abtigay wakaa waa sacad ibnu abi waqaas uu ku faanay nebigu war leebka ku gamburi gaalada iga difaac buu ka yidhi aniga abtigay wakaa i garab jooga ee i difaacaya abtigiina tusa buu nebigu ku yidhi ghaswatu badar nimankii shaybe iyo rabiica markay soo dhaadhaceen waxay yidhahdeen nebi maxamedow aansaar ma rabno quraysh baan rabnaa quraysh waa hal min mubaarizin waa inta ciidanku aynan isku qaadin dagaalka ayaa saddexdii nin ee ugu dagaalka taqaanay ayaa soo dhaadhacday quraysheed markaa bay nebiga ku leeyihiin quraysh soo saar aansaar ma rabno ayuu nebigu dhaadhiciyey ma taqaanaan adeerkii xamse waa adeerkii laxmiya ina adeerkii caliy bnu abi aalib ina adeerkii cubaydata bnu xaaris bnu cabdilmuطalib saddexda uu nebigu macrakadda u dhaadhiciyey mid waa adeerkii aabbihii la dhashay labana waa ilma adeer dhab laxmiya yihiin cid saddexda uga dhow meedaanka ma joogto nebigu wuxuu idhi difaaca xaqoo ku dhaadhaca meedaanka saddexdoodiiba way guulaysteen war haddaad tolnimadaad sheeganaysid ku faanaysid ee leedahay ree hebel baan ahay meelku gaadhsiin mayse islaamnimada ku faan oo waxaan afku dablayaashu ay hurinayaan ee social mediaga ay la fadhiyaan ha ku dhaqmin aakhiradaada ha seegin aakhiradaada yayna kaa guban ayuhalmuslim dhaqaalahaaga xooggaaga caqligaaga raganimadaada
meesha saxda ku bixi meesha saxda waa halkee waa diinta islaamka Soomaali wixii aan karti lahayn oo dhan waa hal bacad lagu lisay maxaa ka dhaxalay waan qaxaynaa ilaa maanta waan qaxaynaa waa qaxooti ilaa maanta Soomaali waa qaxooti kuwa nabadda haystana waxa laga fikiraya sidii loo qaxin lahaa inakiina aqli ka duwan ma keenayna maanta gaala inaga aqli badisay maanta kolba xagga inoo warwareejinaysa war maxaan gaala uga aqli badnaani weynoon oran weynay war dalkayga nagu filan war diinteeda nagu filan قال يا ليت قومي يعلمون بالحبيب النجار وحمكري إنه صعدا لولا هدين نجري مدارس القرآن كا يا علماء الربانيين تودن كدح صعوتها مساجد والبكاء ليس هدين نجري والله مجتمعين لما أركان مكري إنه صعدا لكن وحنا هاي أمد حبا هري إنه إله إنه أقبل يبرجيننا حبا ميل إنه يلا سرد ما جرت إلهك تسي النوطة لأنك وأنا قين وحي إلهي نقول علينا وحبا جرع وحي كرتي إلهي نقليي ما أنت لقى بلا بدين تأسكله إن شاء الله هذا اور إن شاء الله هذا أبو دجانة أبو نبي سيف ودي أبو دجانة سيف تايا قادن صحابته وحدوا البانيقا انيقا بركا يا حقيقة السين ومعي حقيقته قال كان لقوا علين ما يبو نبي يقول والله قلت قال يا قعنتي ولا الله مي أبو دجانة يدي أنيقا حقيقة السين يديب تقال كيف على قلي معركة دي مركي لقوا دقاقيب وحرقوا ذي نكاس ما شكو سي حرقونا يا دليرو بلاش باتما الله حيرتين مانع اللعب بتكو حرقونا صادقو حرقنا حتى ماشي لوغو تلقى لما ديقين مانتا إنكو عقلكيني عمركيني حوقيني دقالهيني فعلكيني وحي aan lahayn oo dhicid la ku daadina maanta hada Soomaalinahay qor waxaan diinta iska leh xaragadii bay saxaabadu dhigeen meesheedii markaas ay nabiga u yimaadeen ya rasuulallah soo bax maxaa dhacay ninkii Abu Dujana seefta aad u dhiibtay dadka kibirka badan leh sida u dhaqaaqayeen buu dhaqaaqay eeg baa lagu yiri markaa buu nabigu sii eegay waa runtiin socodka ilaahay waa nacab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay rasuulku yiri وفرس صحابة رسولك حتى حرقذي ماشي إلهي نبيك كجعلايين بي أيديان إن كنا ما انتهى دقالهني رجني مديني قروح ذيني دليرني مديني حوجني هل كان كود هذا نمانت كم يا دلير كود من الصومالية مالي والبا واحد كود من على الجران معيو إيه مساويني كم إلهي هنوصل نقولها توبت كأنه رجوع إلى الله دينتا دعوة مساجد خير باي نوص عدا مانتا هندقاجنا إن شاء الله خير كاس سعودي أرمنين إن شاء الله تشكيل كشيخ جابر بانو إن شاء الله كل واحد زورنا تبليغه تشكيل مدينة يعني شيخ أنو ديبيا الله ينبارك يا وقدك فردي ونقول نحرسه waxaan rajaynayaa waa tashkiilsantihiin oo tashkiil kaloo idin haray ma jiro waxa uu sheekhu sheegayo waa xaqiiqada dhabta ah ee qof kasta oo muslima laga rabo inuu dareensanaado hadalka sheekhu wuxuu ku dhacayay qalbiga macnaha qalbiga lagala hadlaya waxa laga yaabaa inta aad fadhiday inaad fikiraysay oo lahayd wallahi qaabka aad u nooshahay maaha qaabkii Ilaahay jeclaa وين بدشوا وحا أذكرنيسان مكرجة يشر قولك قال هذا إلهي باي نوشك سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بقال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لكن أمدا مركا لغاها له علماء الدعاء دا يددك براروجينية قلوب الله الله حقيقة التابسينية وحاشا كلا أنا inay gaaladu dib u noqonayaan oo cadceedooduna ay dhacayso
marka inaynu arrinkaa ka shaqayno oo geed dheer iyo ku gaaban aynu u korno mustacidiin insha allah waay waxaynu waxoogaa tilmaamaynaa sheekheena Sheekh Xuseen Cali Allah barakeeyo isaga oo dacwada iyo khayrka ku jira meel kastuu tago haddana baraha bulshada mararka qaarkood dagaalka lagaga qaado waad aragteen intaasoo jeer baa sheekha qabri la geliyey oo layidhi u dhintay mutaabsama ma jirtaa mise ma jirto yaad u malaynaysaan inay qabriga gelinayaan sheekha oo ay leeyihiin uu dhintay yaad u malaynaysaan waxa weeye dadka ka gubanaya dacwadda iyo diin sheegidda iyo xaqiiqada oo dadka la taabsiiyo hadalka uu sheekhu ka hadlayay hadal cid walba ay fahmaysaa hadal qof walba uu garanayo weey waana hadalkii loo baahnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala anbiyada faray inay dadka u sheegaan haddana maca daalik sheekhu kuma badbaadin intaas ayaad aragteen oo sheekha lagu dacaydeynayo waxaan leenahay waad sabri insha allahu tacaala limaada liannaka fii طariiqi اlanbiyaa ambiyada rasuullada allah subxaanahu wa tacaala uu soo diray cidda uu u soo diro waxay kala hor imanayeen aflagaado nebi nuux maxaa lagu yidhi innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin nebi huud maxaa lagu yidhi innaa lanaraaka fii safaahatin safaahad waa maxay waa caqli gaabnimo waa hadda nebi huud calayhi salaam waa haluma jara rasuulkeennana waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu yidhi shaacirun maxaa lagu yidhi mucallamun ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala awalam yatafakkaruu maa bisaaxibihim min jinna miyaanay ka fikirayn in saaxiibkood wax waaliyo ku sugan aanay jirin bal allah wuxuu yidhi wamaa saaxibukum bimajnuun marka waxaan leenahay sheekha faltasbir waltaxtasib وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يقبل دعوتك وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الشيخ وأن يمد له في عمره وأن يلبسه لباس الصحة والعافية قولوا آمين مركا إخواني في الله إنا نكشقين الدين تدمانتين مستعد بينونا يصومها واي إلهي مسع شادي إلهي يا إلى يوم القيامة واي شيخنا وحن قعد سننا إن شاء الله تعالى marka kale ee aan u yeedhno sida uu caawaba noo soo aqbalay inuu noo soo aqbalay insha Allah taala waxaana aynu ku amaanaynaa walaalkeen Fuaad oo arrinka ka soo shaqeeyay oo inta sheekha daba socday sheekhana waxaan leenahay jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayka wa taqabbal Allahu tabaaraka wa taala ta'atak dhamaanteen musta'idin baan